بسم الله الرحمن الرحيم في نور أحسن صدق غضبة وادر استاجية حصل كسمايل وسوق أبوي وحسن وبيره إيوه وحاول صوت كل ماي وادر استاجية حسن بقى فائدة قبل دربي ما حكوا صرفتي بس أحمد نور بقى فائدة قبل وشرح هي حيرة قابا شو كل واحد استاجية هشيسكي سوماليلاند يبنتلاند دحمري مظاهرات بلاران او حسن وبير ابابوليو او ديف يا بلقن او هين وطا او الا حالي بلاها بشو الا ما بلاها بشو هيستين هل بان كورنيا يدنت حسن قال لي يوح مظاهرات الله وضو وتابنيا sidoo kale waxa dul istaagi doona qoliyihii mucaaradka sheegan jiray ee Puntland waa Aaron Chan oo uu matalayo Xasan Toob sidoo kale ana waykan ama badda casbada madow أو تقانا وأقول سارع بري يا على حاجي أجانا هالبان هيدونا واي أنكور برو أنت أو دعنا هالسوانية دعنا هالسبروتشية سيشار كله برنامج سيشار كله واي هاي أنكور برو حسن وبي بقول تيك اسمعيو ولا كروايي سدح بري وعبو أحمد النوري وتشوفه وصار صعدا إن هذا يرو وصور نلقى صور واي هاي واي مين والصور واي وأول أكتهم بكرة كبها على صلاه المري هذا الباليري حسن وثير مدرسه هذه شالي كسو لعبو احمدو دورشو عصب قبصو اسكو عانشو تي هore maadaama aan oday weynahay urniyo waxa ka sheekeynaysid meeshan dawlad baa u timid baaliyiri Jubbaland baa la yiraahdaa ana madaxweyne ka ah dantaada igala hado isku xisbiyaan nahay laba sano bahalkeyso nibra lahaw danta qaamka ee Soomaaliyeed ينادن مالين كودرسن إن دورش حلا دعوه ما يقدر حلا يسال ما أنا تيجي هذه كاره اللي مي شو بلان بالي هذا وعمل حبنا أنت هاي واحد شو بلان قبطان هذه كاره اللي مي واي حسن أسوق المودين دمر بير ما هذا اللي ينتقل أي سحن لوجر على سوق المودين أو أي هاد شيء ده أو على الله ما يجمع الغاضية أيوك بحي كسمايو واي واسوق لي أنا مك يا فايدة خلاص حسن ما سوق جاي كسمايو وفائدة قبا ما حد فائدة قبا وحا فائدة رسمي جاي ربحها هلاي أحمد محمد إسلام أحمد نور صوت ما دي الشيء حسن أو هيسا شعب دي الدولة نمر أحمد كيشلي ويري وخائن الوضع أحمد كيشلي ويري وآدي سنة أحمد كيشلي ويري والدنبيلة قرن إيه هلا صوغت بيش عالم كي هيدي كشغل لها ماشي اللي كشغل شيء ماشي شو بلان ugu sheekeynay ninkaas eedeysana way haw tiginina hala hadlina saanta ka qaadin ugu sheekeynay hadii caalamku arkay xasankii dad caalamku ku lahaa waa dambiile oo tagay Ahmed oo isku narnabay Ahmed shafta galilaya taasi waxay cadeysay inaan xasan soo dambiile yahay maxkamad xasan leeyahay jirin beenlow yahay dawladnimo aysan Soomaaliya oo waxaas dhan bay cadeysay in Ahmed saxnaa bay cadeysay maadaama Ahmed kilaha waa dambiile loo hiday oo gurigiisa loogu tagay oo bariis la soo qunay oo la soo qadayay oo la leefay waxay cadeysay in ay been ahayd Ahmed inuu dambiile yahay annaga dhaxdeena ma Soomaaliya lama cadeynayo Soomaaliya sogta ee waxa loo cadeeyay caalamka shalay loo cadeeyay Ahmed sidaas uu dambiile ku ahayn ribix iyo hadii alla ku idmahayo faa'iidan uga helay imaatinka Xasan madaxweynaha Soomaaliya ee shalay eedeeyay ina bahashi hala soo qabto ku eedeeyay oo gurigiisa dhex taagan oo martii oo taasi waxay cadeynaysaa Ahmed inuusan dambiile ahayn taasina waa ribaha ugu yar oo ka faa'iiday way Ahmed sidoo kale faa'iidadaas faa'iido uma bedelin irida ka baxay wax kasta oo dhacayna iyo wax kasta oo diyaal ku rooyahay in aan wajigu fiicnayna baraha bulshada ugu haafi waxa ay soo booqday wafdi kamid ah wafdiyada Soomaaliya sidoo kale waxa gurigay ugu yimid Xasan Sheekh walaalkii Xasan Sheekh Maxamed taasi waxay soo afsado caalam beesha caalamka u sheegtay ayada ma Twitter Ingiriis baa lagu qoray Twitter taasi waxay soo afsaday Xasan inuu sawir fiican kala tagin kismaayo oo san kelmadda khiyaaliga ah wada halka si socon doono xilli kala balamayn taadi hore u taqaan waxa guddi baa loo saaray way ninka haysta ribixa ama faa'iidada waa Ahmed Maxamed Islaan أحمد نور الله بركيه قولك أكثر كثير يسوي لي على برنامجكم قولك إلى أن يستوي حسن وفافيي مظاهرات بلارن وديف يبلغن يفتح لك سدعي
oo xasan wabiir abaabulay waxaa laga mudaharaadayaa Puntland iyo Somaliland ayaa is afgartoo wada hadlay waxayna ka heshiiyeen arrimaha amnigooda xuduudahooda iskaashiga la dagaalanka argagixisada hadoo fiirso afka qayaalo okay dadka Soomaaliyeed baan rabaa inaan wax tusaasiyo ama reer Puntland ama reer Somaliland baan rabaa inaan wax yar u taabto waxa mudaharaadka keenaya ilaan Puntland Maraykan bay wada hadal amniga iska kaashadaan Somaliland iyo Ingiriis iyo Talyaani baa amniga iska kaashada Soomaaliya iyo Ruush iyo Maraykan baa amniga iska kaashada macna kuma jiro amniga la iska kaashada argagixisa wix amniga adduunka iyo amniga geeska liddi ku ah cid ka sadibaya okay wax qaylinaya ma jiraan okay maxaa ku gaara Puntland iyo Somaliland ilaa cid baan ku duuleynaa ma oran dawladda federaalka duulimaad ku nahay dawladda federaalka dilid ma oran ana idin sheegaya marka halkaas ana idin iftiiminay sideedaba Xasan Sheekh Maxamuud labadii teeram oo madaxweynaha noqday si fiican dhageysta hawiyada arood iyo dirow iyo raadil iyo mirifle dhageysta sir baan siinaya caaw labadii jeer oo madaxweynaha noqday xildhibaanada dhisayay ee background-ka u ahaa waa konton iyo kow xildhibaan oo reer Somaliland si fiican dhageysta waa labadii jeer ee xukunka qabtay markii uu tartamada xukunka waayay jirayna oo xilligii farmaajo ku guuleysanayeen ayaga dhisayay oo la hongoobay siyaasadda ninkii garanaya ama fahansanaa ama xilligan noolaa bay la garanaya hawsha ama hadda siyaasadda ku jira Xasan waxa uu ku faa'iiday laba jeer madaxweynaha ku noqday ma hal marna la dhacay oo kursiga ay saari waayeen reer Somaliland way asagoo isleexad ninkaliyaado Saciid Cabdullaahi waagi dhaweedo dagaalku laasana ka socdayna wuxuu Somaliland iyo musabbix u taageeray waxay ahayd xildhibaanada iyo rag kursiga saaray bay ahayd kadib asagoo isla dani ku xumee sideed xildhibaan oo dhulbahanta leeyahayna laascaano ku soo dabo ayuu laascaano ka dhex qubaystay taasi waxa ay weydaarisay konton iyo kowgii xildhibaan ee dhisi jiray weligii daba taagnaa ee isaaq inta xukumay isaaq Somaliland xildhibaanadeedii isaaq ayaan oranay Somaliland xildhibaanadeedii ayo elite-kii Somaliland ayaa weydaartay halka uu ka gubanayo oo wuxuu isleeyahay elite-kii reer Puntland iyo elite-kii reer Somaliland baa isfahamay halkaas dhalaal qubatay ka yahay wuxuu isleeyahay halka xildhibaanadaas wareegay oo shaqawal ku dhisay oo daraad ku dhisay oo maantana aad ku axdi fudhay oo dhulka la jaray salkan siinay xilligii 1960kii ay xorriyada qaateen reer Somaliland markay xorriyada qaateen oo xorriyadii soo qaadeen oo ayagu caalamka la yimaadeen Muqdisho dhaheen waa isku darsanayna oo Muqdisho la qaatay xorriyadii la qaatay oo ay dhaheen walaalaha iyo isku darsanayna aadan cadda wuxuu noqday madaxweyne ra'iisul wasaarana waxa noqday Cabdirashiid Cali Sharmaake buu ka dhigay taa macnaheedu halka waxa ka soo baxay reer koonfureed dadkii la wada oran jiray ama majarteen hawiyo xarta reer koonfureed ilaa Somaliland waqooyiga waxa haystay Ingiriis annagana Soomaali Italian iyo Soomaali Ingiriis bay ahaayeen noqd halkaas ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihiiba waxa qaatay Soomaali Italian nimankii xorriyada iyo calanka la yimid ee yiri walaalayaal waa soo darsanno waxa wasiir baa la siiyay okay aadan cadda dhacay waxa madaxweyne noqday Cabdirashiid Cali Sharmaake wadadii aadan cadda anagu ma qaadin reer Puntland Cabdirashiid Cali Sharmaake soo reer Puntland ma hayn wadadii aadan cadda ma qaadin dhulku dhigay wuxuu yiri nimankii shalay calanka noo keenay ee walaalahan ahaa Soomaali nadii ku reeyay Soomaali British wuxuu siiyay ra'iisul wasaare halka waxa ka soo baxay aan si nimankaas xaqoodii behere okay labada reer ciyaal baa noqday madaxweyne ra'iisul wasaarihii Cabdirashiid Cali Sharmaake madaxweynihii waa Soomaali Italian
رئيس وزراء